munaasabad ballaaran oo lagu caleema saarayay caaqil cawil caaqile maxamed xasan deyl ayaa gelinkii dambe ee shalay ka dhacday degmada xamar lagu xidh ee gobolka Cayn oo 40 kiiloomitir dhinaca koonfur bari ka xigta magaalada madaxda gobolka Cayn ee Buuhoodle. munaasabadani oo ay soo qaban qaabisay beesha caaqilkani cusub dooratay ayaa waxaa ka soo qayb galay isimo cuqaal culimaa u diin aqoon-yahano siyaasiyiin ururada bulshada iyo dadweyne kale oo aad u tiro badan. dadka ka qayb galay caleema saarka caaqilkani cusub ayaa ka kala yimid magaalooyinka Buuhoodle, Laascaanood iyo tuulooyin kale oo ku teedsan hawdka gobolada Sool iyo Cayn. ugu horeyn ayaa waxaa xafladaasi wacdi iyo ayada quraanka kariimka ku furay Sheekh Saleebaan Maxamuud Jaamac, waxaana intaasi kadib hadalka isaga dambeeyay cuqaal, isimo, aqoon-yahano, abwaano iyo waxgarad kale. waa kuwan qaar ka mid ah madax dhaqameedkii madashaasi ka hadlay. waxa weeyaan wiilka cawil la yiraaho tolkayow iyo reer Buuhoodlow ma aanan niman cidlo ku beegay ma aanu doorashadiisa ninka caliduux waa tii laga sheegay hidaa dumarka loo guursadaa hiigtana geliya lama hororo tii hawl yar iyo heeri soo galay waa runtiisa ninka waa hidaraacna laba daraale waa nin dhalinyara ninkaas waxaanu ku hidaraacay oo kale waayahay waxaanu kaloo raacnay ayeydii weyne cali muuse xasan gaaguur xasan gaaguur eebbe waxay gaba wareen gaaguur iyo xaydi taana waa garanaysaa horta ninka dhalinyaraha ahaaye hidadaasaanu ku doorannay tolkayow. salaan ka bacdi waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa shirkan sharaftiisa iyo isuimaatinkiisa. waxaan kaloo u mahadnaqayaa nimanka dadka intaa leeg isu keenade reer miyiga u badan ee tacabka intaa leeg galay ee hawsha intaa leeg sameeyana waa u mahadnaqaya. ilaahana mahadda isagaa iskale cidi lama leh, wixii ka soo hadho weeye mahadda. waxaan kale oo taabanayaa hadalka wax badan maanta laga doonmayo waqti weeye, laba qodob oo keliya weeye. mid waa mahadnaqaas oo waxaa lagu mahadnaqayaa nimanka hawsha qabtay iyo shirku siduu u dhaganuglaadee dhulbahanta isugu yimi iyo haddaba idmaayo raalli ahaanta dadka ka muuqata iyo qalbiga wanaagsan ee ka muuqda. mid waa taasoo mahadnaqa ilaahba iskale, wixii ka soo hadhay sida la isugu yimi ragga aan sheegnay iyo dadka aan sheegnayba iskale. midda kale aan ku darayaa waxa weeye ninkaa la yidhaaho cawil garaad laga dhigay caaqilka. afar oday anigu intaan garanayo kolley magacoo aan ka sheeg ka qaatay inuu taliyo guud ahaa maxamed iyo xasan, labadaba waad garanaysaan, laba caaqil bay ahaayeen. xasan anigu waxaan fadhiyaa maalinta shir nin liyuudahoo ingiriis ahoo ninka boqortooyada uu burca yimi. dadka wax allaale wixii soo dadka intaa leega isu yimi 10 qof baa hadiyad uga siiyey, 10 qof baa hadiyad ka siiyey. 10 qofka hadiyad uu ka siiyey xasan mid buu ahaa. Wallaahi wa barakaatu. ilaahay aan ka yaabno. marka ugu horeysa ilaah baa mahad iska leh. marka labaadna waxaanu mahadnaqaynaa qoyska xafladan qiimaha badan soo agaasimay sababta oo ah inuu inteena oo midba meel u hoyday halayto ay maanta halkan isugu keenaan. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. waxaan kaloo mahadnaqaynaa dadka sharafta badan. ugu dambeyn ayaa waxaa halkaasi dadkii ka qayb galay munaasabadani uga mahad celiyey caaqilka cusub ee hadda la caleema saaray caaqil cawil caaqil maxamed xasan deyl. marka xiga xafladda waa xaflad ballaaran. waxaa la isugu yimid miisaaniyaddeedu waxay u badan tahay dano hoose oo annaga xafladda miisaaniyaddeedana isugu kaaya yimid. waa u tahniyadeynayaa dadka waa u tahniyadeynaynaa waana mahadsan yihiin. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. si kastaba ha ahaatee munaasabadani ayaa ku soo dhammaatay jawi wanaagsan. caaqilka la caleema saaray oo ah nin dhalinyaro ah ayaa la sheegay in looga egmaday jagadaani sandalada oo soo jireen ah iyo weliba hidaraaca xeerka madax dhaqameedka Soomaalida. Khadar Cawl Ismaaciil, Universal TV, Buuhoodle.